وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني كوحقبان كرايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني وقابريا ووطني وقلكدايا ووطني كوحقبان كرايا ووطني islaamka marti sharafta halkan fadhida furitaanka xafiiska degmooyinka maxamed mooge iyo maxamuud haybi waxaan halkan ku soo dhaweynayaa ku salaamayaa maamulka gobolka ee xisbiga wadani gudoomiyaha waa xafiiska degmooyinka maxamed mooge maxamuud haybe oo maanta furitaankiisa aan xafladda u sameynay xafiiskan waa xafiiska guud ee degmooyinka maxamed mooge maxamuud haybe waa xafiis u furan xildhibaan kasta oo ka sharaxan xisbiga wadani oo hawl ku leh oo hawl ka gashay ilaa xisbiga ma sharaxnay xafiisku wuxuu shaqeynaa xildhibaanada wada shaqeyn fiican baynu yeelan doonaa insha Allah madaxda xisbiga wadani xildhibaanada inoo sharaxan insha Allah mustaqbalka waxaan ka salaamayaa taageerayaashan faraha badan ee iyaguna ka soo qayb galay dhammaan waxaan ku salaamayaa furitaanka xafladda gurigan labada degmo ka dhaxeeya maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxaan u hambaleynayaa maamulka gobolka oo runtii u diyaar garoobaya doorashooyinka isku sidkan ay nagu soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka iyo tii madaxtooyada oo 612 cisho ka hadhay diyaar garowgeenu taas weeyaan ballanteenu waxa weeye inaynu boardka iska tunno hawl badan baana sugaysa inaynu gudiyo dabadba sabaabulo waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha iyo xoghayaha gobolka iyo xisbiga heer qaran oo dhan tala fadhida mudanayaal iyo marwooyin waxaan kalaan xaggan ka cambaaraynayaa waan cambaari u soo jeedinayaa oo chance aynu miskanaynay in waxbarashada dalka maanta chance baynu haysanay inaynu heerkeeda aanu sare u qaadno iyo qiimaheeda maadaama dadkii musharaxiinta ahaa lagu xidhay shahaadooyin oo cabdiraxmaan iyo dambiilyo ay ka soo gudbeen si qurux badan iyo xildhibaanadeena kale nala jooga qaarna aan secondarygii haysana in magaraysaa la sii daayo oo loo dhaafo ilaahay ayaa mahad iskale madashan quruxda badan la isugu keenay gaar ahaan xisbigayga aadka u jecelay saaka indhaha bay faraxsan huruudan ayaa mahad maar aragay indhaha ku kala qaatay dhammaan reer wadani oo dhan waan salaamayaa gudaye dibad inta halkan joogta heer qaran gudoomiyaasha gobolada Foosiye Xamse mawliid xildhibaanadayda iyo in wax kasto wadani jecel baa anaguna wardan jecelay baan leeyahay hadalka sii badin maayo waxaan maanta joognaa xafiiska furitaanka maxamuud haybe iyo maxamed mooge xildhibaan kasta wuu furay waa baalashu ka duulayay waxaan anagu aragnaa dan musharaxiintii gobolka Muqdisho khaasatan waliina xaafadan si gaar codka uga doonaysay inuu xisbigu noogu hiiliyo xafiiskan maanta la furayo aadna waan ugu faraxsanahay naga noogu hiiliyay waa goobtii loo noogu shaqeynayay waa goobtii aan dadka kula shiraynay waa goobtii aan ka duulaynay bayskaygu uu noqonayaa xafiiskan waan uga mahadnaqaynaa saacidada ay nagu saacideen meeshan ku shaqeysanaynay maanta noo furaan mahadnaq gaaran siinaa xisbiga gudoomiyaha gobolka cidii ka shaqeysay iyo xogayaha gobolka iyo gudoomiyaha dhammaan garabka haweenka garabka dhalinyarta aad baan uga mahadnaqaynaa wada shaqeyn fiican ilaahay idinkii waan ka filaynaa inaan ka soo qayb galo maanta xafiiskeena labada degmo oo ah baalasha aan noogu hiilinaysaan dhammaan taageerayaashuna ay ku sugan yihiin labadan degmo aad iyo aad baan u hambaleynayaa taageerayaasha mugga iyo miisaanka leh ee labada degmo Kuryasamo iyo degmada Maxamed Mooge runtii waxaan ku faraxsanahay sida ay isu diiwaangelintii ugu dambeysay taasoo labadan degmo ay ka keeneen natiijada waa daawateen oo waa tala soo dhigay facebookyada iyo gruubadoo dhan heerka ay gaarsiiseen aad bay farxad igu tahay aad baan idinku mahadnaqayaa shacabku rajo kale ma hayo
oo kulmiye way soo daawadeen waanay arkeen intuu jiray wuxuu u qabtayna ma jiro soo run maaha soo cidla kagamuu dhaqaaqin rajada keliya ee shacabka somalilan hayaa waa xisbiga wadani dhammaantiin meel kastaa joogtaan qurbajoog daljoog iyo inta codaynaysa dalka gudihiisa joogta caasimadda waxaan mar labaad fariin idinku dirayaa inaad codka siisaan xildhibaanada ka sharaxan wadani doona meesha aanu ka duulo musharaxiinta iyadu insha Allah gacan weyn ayaanu idinka rajaynaynaa inaa mataqaanaa haddii bidinkiin leeyahay doorashada soo socota nagu garab gashaan hadalka intiisii badnaa xildhibaanadii iga horreeyey baa yidhi laakiin se wuxuun baan idinku baraarujin lahaa uun dadkiinan xaafadda degan ee halkan isugu yimi in hata waxa soo socota kaadh qaadashadii qoladii berigii dhaweyd la diiwaangeliyey kaadh qaadashadeedii baa soo socoto aan filayo inay 31 bilaabmayso waxaan ilaahay idinka rajaynayaa oon idinka codsanaynaa inaan waxba inagaga lumin waxa la yaalo wixii dad isdiiwaangeliyo dhami ay u diyaar garoobaan mataqaanaa inay mataqaanaa qof walba kaadhkiisa u qaato laakiin nin walba dee waxa weeye wuxuu ka soo bilaabaa meeshii codka laga siiyey baahideeda mas'uuliyad gaar ah ka saaran kolley dee anagu noqon mayno niman gawaadhi iska saaran oo ay weydaan xafiisdan oo kala furan doona hadii ilaahay nagu gooleeyo noogu timaadaan oo at least haddaan ku mashquul ahayn haddii guusha ilaahay iraadadii noo timaado aanaan u yururin guri annagu aan ku noolahay ama xafiiska laakiin meel aad ka heshaan cabashada aad maaragtay u soo gudbisaan annaguna wixii sharcigu ina siiyo awoodeena akraankeena annaguna hawsha maaragtay ka qayb qaadano guulayso garabkaagan ee baqabay wadani guulayso waleega gadaal ha marin wadani guulayso waleegaba gacan sare afarta murmuruxsan iyo masiiba laga xijaa waxaanu idin leenahay waar xashiishkan noo tuulan iyo biriishkan googo'ay ciidii baad xataa xidhay biriishkii haddii iminka roob yimaado biyahaaba jabinaya halkii dalooli jirtay ee biyuhu ka daadan jireen xataa ciid baa xidhay xashiishkana mari kari inan baa maalin dhaweyd igu tidhi ilaa waxaad la busaaradsantahay waa halkan kaadida iyo dhiidhiga leh ee aad subax walba ka tallowdo markaan shaqo tegayaabaan halkaa ka sii tallaabaa meelaan mara ma hayo ilaahay wuxuu igu ogaya kaftan maaha cagahaygan kala wisuusaa cagahayga ayaan kala wisuusaa waxa laale iyo waxa hudheelo eeriyadaasa ayaa biyaha shuba oo biiriya dabeetana sida daadka ayay raaciyaan dooxa maanta waxaan halkan isugu nimi in la furo labadan degme ee maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee aad noola shaqaynayseen haddaanu nahay gudidii gobolka ee madashana u qurxisateen ee mar walba noola shaqaysaan waxaan idin farayaa insha Allah biidmillaahi kariin in sidii anaga noola shaqaynayseen ula shaqaysaan xildhibaanadiina ka soo jeeda labadan degmo ama dhammaan xildhibaanada wadani oo inoo soo saartaan xildhibaanada oo xildhibaano tayo leh insha Allah biidmillaahi kariin waxaan ilaahay uga baryayaa xildhibaanadaas inay noqdaan kuwii ku guuleysta bacda salaan waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada maxamuud haybe oo qayb weyn ka qaatay dib u furiska xafiiskan halka iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa shaqada miisaanka leh aad bilowdeen idinkii degmadiina kala isku sadkan dhawaanaha waxaan wadnay furista xafiisyada degmooyinka in gobolka Murujeex gaar ahaan caasimadan Hargeysa waxayheeda kala duwan dibadana waan u bixi doonaa insha Allah oo dhammaan waan ka soo furi doonaa gobolka oo dhan laan loo fariin u baadin farayaa fariintaas waxa weeyaan waxa bilaabmaysaa kaadh diiwaangelintii kaadh qaadashadii qof walba halkan nagula fadhan goobtan inoo jooga wuxuu mas'uul ka yahay gurigiisa jaarkiisa xaafadiisa deegaankiisa iyo boqolka guriyo u dhow boqolka guriyo u dhow inaanu kaadh ku baaqanin fariintaas aad gaarsiinaysaa dadkii iyo xaafadii aad ka soo jeeday aad ka timi marka waa inaad fariintaas dadka aad u gaarsiisaan talabaad dadkii hore ee 2016 diiwaangeliyay in kaadhkii qaadan 17kii iyagu dib bay qaadan karaan cidii hore kaadh ku baaqaha kaadhkooduna uu yaala wala keenaya cidda waa la qaadan karaa labaad waxaan u mahadnaqayaa labada degme isku sidkan maxamuud haybe iyo maxamed mooge oo runtii aan maanta joogno xafiiskooda gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa maxamuud haybe oo shaqadan ay qabteen gudoomiyaasha maxamuud haybe iyo garabkiisa haweenka waxaan leeyahay aad iyo aad bay mahadsantihiin insha Allah bidilaa kariim maanta waa xafiiskan joognaa waa maxamuud haybe iyo maxamed mooge xafiisadan furayna macnaheedu maxay noqonayaan laba arrin bay xafiisadan inoo qabanayaan koow inay la shaqeeyaan musharaxiinta
rasmiga inoo soo bixi doona insha Allah bidnillaahi kariim inkastoo aanu xisbigu si dhaba wali u shaacin musharaxiintii rasmiga ahayd laakiin waxaan ku rajaynahay musharaxiintan inala jooga inay noqon doonaan kuwa rasmiga ah insha Allah shuruudaha buuxiya waxa kale xafiisyada inoo qaban doona registrationkii baa la bilaabi doonaa membershipkii degmooyinka inuu bilaabi doono hadduu alla yidhaa oo waxa weeyaan xafiiska xisbigu wuxuu ku tiirsan yahay waa shacabka weeyaan inaynu liistayno membershipkii oo aynu xisbiga laftiisa dhaqaalo u samayno degmooyinkana insha Allah bidnillaahi kariim shaqadooda waxay noqonaysaa inay la shaqeeyaan musharaxiinta runtii musharaxiinta inala joogta oo ka qayb qaatay furitaankan xafiiska iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa musharaxiinta xisbigeennana waxa insha Allah bidnillaahi kariim looga baahan yahay inay barnaamijyo la yimaadaan barnaamijyadaas oo ah barnaamijyada tusaale ahaan deegaanka waxay ka qabanayaan golaha baarlamaanka waxay la qabanayaan habeenada ma tiifiyada warkayay qoladiina wadani runtii musharaxiinteena ahi niman fara badan oo dooda fiican ka qayb galayaan arkay akademi ahaan dhisan barnaamijyo fiican la yimi marka waxaan oranayaa insha Allah waa inaad ku tala gashaan barnaamijyadii aynu ku hagi lahayn deegaanka oo adigan arkay maanta caasimadeena Hargeysa ay noqotay waa dareemaysaa shuruudaha loo adkeeyay waxa weeyaan deegaanadii muxuu ahaa maayiradii ama golihii deegaanka maanta wadanka khasaare laga taagan yahay marka maanta sababaha loo adkeeyay in ay digri qaataan in magaraysa shahaadooyinkii la soo ay cadeeyo waxa weeyaan waa qasaaro lagu qasaaray golayaashii deegaanka dhammaantood khaasatan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxay noqday kuwa ugu liita waliba Maayarsooteka kow ka yahay oo waxaan leenahay Maayarsooteko isagoo 8 sano hore wuxuu qabtay inuu ogeyn haba yaraatay waxa laala wuxuu qabtay oo Hargeysa aad arkaysid Aamina Fureymka halkii inoo sheegaysa waa doox marka laga sii talaabayo ayuu haddana mar labaad soo sharaxay runtii reer Hargeysa ceeb ay ku noqonaysaa arintaas ka xisbi ahaan waxaan leenahay insha Allah bidnillaahi kariim anagu golaha deegaanka soo sharaxnay waa rag akademiya waa dumar akademiya waa dad yaqiin fiican waa dad Ilaahay ka cabsanaya